marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu marka ugu horeysa waa Cabdirus Faarax Maxamed. daadaydu waa 12 jir. waxaan ku noolahay tuulada Xangeeda oo hoos tagta degmada Qabri-Garad. degmada Qabri-Garad waxaa kuma gobolka Togdheer. waxaan sameeyay ama ikhtiraaqay alaabo ama salad ama farsamooyin kala duwan waynu soo eegi doonaa mare. kani waa lad halkan ayaa laga daarayaa waatan waa ka uu baxaya waa kan imika uu baxaya waxaan kaga maaranay ama se waxaan u isticmaalnaa guluub ahaan habeenkii waanu kaga maaranay solar ama bayteriya inaanu doonano. xagga sare waxaa saaran solar wuxuu ku shaqeeyaa dab maalintii ayuu dabka qaataa habeenkiina waa la shidaa. qaar kalena way jiraan iyaguna halkan bay noo yaalaan. halkan bayteriyadii baa ugu jira dadeegtid halkan dadeegtid bayteriyadii baa ugu jira. moobilada waa laga dabaystaa maalintii dabka lagu xidhayaa waa laga furayaa galabtii. moobilada iyo wax kasta waa laga dabaysanayaa. waa ila eegi kartaan sida moobilka uu ugu guraayo ama se loo gelinayo. xadhkaan ayaa la gelinayaa kadibna moobilka ayaa la gelinaya. oo kan imika uu ku guraya moobilkii waxaa laga dabaynaya. halkan 4 bayteri ayaa ugu jira oo kuwa kulcooyinka. haddaynu eegno waayarkan waa kii soolartii xagga sare ayay saaran tahay. moobilkiina waa kan si wanaagsan ayuu ugu gurayaa waana ku dabaynaysaa maalin kasta. ka daaray guluubka waxa weeye caag iyo waayro iyo waxaan sukan keenay. waayirku waa halkan mara halkan ayuu raacsayay. xagga waa imka guluubka halka ka baxaya. guluubka imka waa halka ka baxaya. mar waa bakhtiiraysaa marna waa daaraysaa. waa caagado wax marka hore qaab caagadeed le marka horena caagada ahaa laakiinse anigu si kale ayaan ka dhigay. waxaan ka dhigay leed la ilaysto habeenkii oo baxa oo dadka anfici kara habeenkii si madowga oo u nuurinayo dhulka iyo meesha lagu ilayo. tan waa mid kale. taas marka hore waxay u baxaysaa halkaas oo marto shahaana iyo xaggan oo faranjaa iyo halkan oo laambadiya. tanna waxay u baxaysaa 2 qaybood. mar saas oo tooshkiya imika hadaan idinkiina ku ilayo caadi idin qabanaya iyo markaasoo laambadiya. halkan waa bakhtiisooyinka guluubada oo aan soo qaatay oo iyagoo 2 midha. halkan waa iltoosh tan waa laambad xumaatay aan ka soo saaray. halkani waa halkii xanjaartu galaysa tooshka aan soo qaatay. intaas ay qaybaday marka horena qaybta sideeda weyn waa caagad sida marka hore loo soo isticmaalay. tan kalena waxay ka kooban tahay qaybtaas oo faranjo imika ah laakiin markii horena aan ka saaray gaadhi ciyaalo iyo qaybtan oo laambadii guriga iyo qaybtan oo tooshahaana. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu waa Saalax Faarax Maxamed ahna Cabdirus Faarax Maxamed walaalkii. inankan Cabdirus garabkayga fadhiya waa walaalkay. wuxuu ahaa arday marka waxa weeyaan arday wax ka bartay magaalada Xangeeda madrasatul Aflax Xangeeda oo ku taala degmada hoosteeda degmada Qabri-Garad kana tirsan gobolka Togdheer. Cabdirus Faarax Maxamed walaalkay ahna kii noogu yaraa. wuxuu weeyaan arday ka aflaxay ama ka qalin jabiyay madrasatul Aflax ku taala Barcasheekh ama Xangeeda loo yaqaan taariifkeeda. ardayga quraanka ayuu dhameeyay xifd qiraa'ada ayuu ku dhameeyay. xifdigana ma sha Allah ilaa kulli kala bar meelaha ayuu ka marayay. xifdigana ayuu ka marayaa isagoo tacliinta aan ku ogeyn. wuxuu markaa insha Allah taala ikhtiraacday ama bilowday iyana cidi garab ka siin barnaamijkan. macnaha waxa weeyaan qaybtan markaa waxa weeyaan leedarka iyo electroniga oo aan cidina markaa aanu marna tigin goobta. wuxuu sameeyay markaa insha Allah taala inuu isagu keligii ikhtiraacdo
iyadoon cid ka garab siilaysa aanay jirin amase meesha uu ku nool yahay madrasadan iyo deegaanka iyo tuuladan markaa uu joogo aanay jirin cid kale oo farsamada markaa uu ka higsaday ama uu ka eegtay oo ka daalacday aanay jirin keligii maskaxdiisa uu ka tuujiyey wuxuu markaa sameeyey ha ka soo bilaabo iyadoo markaa wax qalaba iyo wax agaba iyo wax markaa waxa weeyaan taageera meel lama aanu ka helin gudaha iyo dibadda wuxuu sameeyey markaa inuu leydhadh sameeyo tooshashka burburka iyo waxa weeyaan meelaha wax ka soo ururiyo isku xidho waayirada kabacdi waxa weeyaan intii hore wuxuu heer buu gaaray markaa magaaladii badankeedii meheradihii sida imika meheradan aanu fadhino in ay walaala yihiin ay leedahay aan waalna ay leedahay oo kale tusaale ahaan leydhkan ku siraadan ee habeenkii markaa waxa weeyaan markaa lagu isticmaalo waa leydhku keligii sameeyey leydh kale oo markaa lagu xidho ma jiro hase yeeshee leydhkaa uu sameeyey ee meherada dhan habeenkii lagu isticmaalo maaha leydh markaa waxa weeyaan qalab kale loogu daro oo markaa waxa weeyaan dakhli kale iyo lacag kale ay ku baxayso oo waxa inankaa yari ardaygaa yari markaa maskaxdiisa iyo rayigiisa iyo kartidiisa iyo maskaxdiisa uu ka tuujiyey keligii ayaa lagu isticmaala meherada run ahaantii waxa weeyaan markaa iyo weliba meelo kale oo fara badan sida xaafado kale oo markaa goobaha hurdada sida markaa leydharka markaa waxay guryaha oo kale tusaale ahaan waxa weeyaan iyadana waa lagu isticmaalaa sida runtii wax aad iyo aad u cajiiba walaalayaal dhammaan markaa waxa daawadayaasha inta arrinkaasi gaaro waxaan aad iyo aad runtii markaa u dareensiinayaa inankaa yari waa agoon waa rajay run ahaantii maskaxda intaa ku keenay isagoo reermiyo reerbaadiya weligana leydh iyo meel markaa electronic aan midnaba arag in laga saacido cid kasta oo markaa ka saacidi karta qaybta waxbarashada tacliinta iyada ah iyo wixii kale taageero ah waxa weeye muxsinimo ee loo fidin karo insha allahu tacaala inay u fidiyaan wadayaasha islaamka markay ku joogaan guryo dibad wadashiyo qoljoog insha allahu tacaala taawaan ka codsanayna run ahaantii waxaana aad iyo aad arrin lala yaaba oo cajiib nagu noqotay maskaxda ay macnaha maskaxeedu qaadi weydii iyadoo qof yar oo markaa waxa weeyaan aan weligii magaalo inta badan markaas aan tigin meel wax ka soo baran goob kale oo markaa electronic arag inuu sameeyo leydh la intifaacsado biidni illaahi tabaaraka watacaala arrin aad iyo aad cajiib way noqotay saadaraadii waxaan leeyahay inankaa yar agoonkaa rajada walaalkay cabdiruus faarax maxamed ardayga cid kasta oo insha allahu tacaala hawshaa ka taageeri karta si muxsinimo ilaahay dartiidii in insha allahu tacaala hawshaa waxay igu dhaliyay himiladan amase inaan iktiraaco leydh anigu aan iska leeyahay waxaa timi inay tooshashka markaas soo iibsado tooshashka markaas si xirqaaliya ah markaas soo iibsado inay markasta iga burburaan dabadeedna waxaan anigu ku hamiyey inaan anigu qaar iska samaysto toosh anigu aan leeyahay oo aan xilligan doonana samaysan karo haddii aan helo cid iga gacan qabatana waxaan doonayaa hindisahaga inaan ka mid dhaliyo aan magaalada dhan aragtaan inaan leydh geliyo haddii ilaahay inay igu guulaysiiyo